Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawada kusoo dhawow Sato Academy magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur videogan waxaan uga hadlaynaa Samin Amplifier Samin Amplifier waa operational amplifier macnaha waa circuit oo sameeyo operational amplifier kaasoo isku geynaya inputyo dhowr ah sida V1 V2 V3 oo kale ayuu isku geynayaa wuxuuna ka soo saarayaa outputka isku geyntooda ayuu halkan ka soo saarayaa tusaale ahaan halkan waxaa lagu siiyey V1 V3 V2 iyo V1 aa lagu siiyey saddex input aa haysataa saddexdaas input isku geyntooda waxay soo saaraya V output marka hadda waxaan isticmaalnay amplifierka ay isticmaalayso wuxuu noqon karaa inverting ama non inverting sidii haddii casharadii hore aad la socotay sidaan kusoo sharaxnoo kale ama inverting aa isticmaalaysaa ama non inverting aa isticmaalaysaa hadda annaga waxaan isticmaalaynaa inverting saddexdan input waxay soo gelayaan inverting marka waxaan qaacidada V output aan raadinaynaa V output maxaa lagu helayaa marka V output waxaa lagu helayaa waxaan ognahay currentigan halkan I1 I2 I3 waxay la mid tahay ayadanay la wada mid yihiin haddii aan ku apply gareeyo ayadanna waxay la sii mid tahay ayadaasay la sii mid tahay macnaa I iyo I waa isku mid ilaa hal meelay maraysaa qaybtan waa zero hore saan usoo sharaxnay waa zero meeshaan zerodanna zerodanay kusii xiran tahay marka qaybtan current ma soo aadayso currentigan halkan u aadaya marka waa same maadaama series ay yihiin waa same marka currentigaas wuxuu la mid yahay aan dhahaynaa I1 plus I2 plus I3 saddexdan ayoo la isku daray ayay la mid tahay currentigan marka currentiganu waxay la mid tahay halkan marka la joogo ee aan haystaa halkan iyo outputka currentiga marka wuxuu la mid yahay VA aan halkan dhahaynaa halkan V aan raacinaynaa VA waxaan dhahaynaa VA minus V0 loo qeybshay RF macnaha currentiga totalkaha la mid ah RF waxay la mid tahay I1 maxay la mid tahay waxay I1 la mid tahay V1 oo laga jaray VA marka waxaan dhahaa V1 oo laga jaray VA loo qeybshay R1 plus V2 minus VA loo qeybshay R2 plus V3 minus VA loo qeybshay R3 halkan R2 intaan markaan diyaariyo macnaha qaacidadan markaan saan u diyaariyo waxaan ka soo helayaa meeshan V output aan ka soo helayaa waxaa ogaanaa marka VA alwada waa zero macnaha VA halkaanay soo geli lahayd waa zero halkaanay kusoo gudbi lahayd waa zero zerodanay kusoo xiranta marka VA waa zero VA maadaama ay zero tahay meeshan waxay noqonaysaa minus V0 RF oo la mid ah V1 R1 plus V2 R2 plus V3 R3 saddexdan markii aan sidaan qaacidadan ka dhigo V1 haddaan rabo inaan inta ka soo helo maxay noqonaysaa cross multiplication iskugu dhacayaan macnaha intaan V1 ay ku dhacaysaa ama waxaa dhihi kartaa tan meel walba ku dhifo tan RF ta meel walba ku dhifo halkan haddaa ku dhifatid RF aa ku dhifatid intaana aad RF ku dhifatid maxaa ka soo baxaya RF tan iyo RF tan way isla go-ayaan meesha waxaa ku saaraysa minus V0 oo la mid ah RF tanna koray ku dhacaysaa RF R1 V1 plus RF R2 V2 plus
rf r3 v3 intaanay kasoo baxaysaa. marka intaan minustan u qaybi meel walba inta way tirtirmaysaa, balaasay noqonaysaa. halkan waxay noqonaysaa minus v0 marka waxay la mid tahay intaanay la mid tahay. halkan baa outputkii ka helaysaa, outputkaadi halkaana ka helaysaa. outputkii marka outputkii muxuu noqday isku geynta inputyadii iyo gainkoodii. mid walba gain oo wataa sida hore usoo sheegnay, mid walba gain oo wataa oo a ah, macnaha rf by r1, rf by r2, rf divided by r3 waxay la wada mid yihiin kuwan a marka isku darkoodii oo lagu dhiftay gainkoodii oo outputkii la mid yihi. easy waaye marka intaas summing amplifier waa intaas, macnaha qaacidadiisa intaasaa lagu helaa. hal example aan ka shaqeynaynaa oo qaacidadan anagoo isticmaalayna. given nala siiyo ama 2 input ama 3 input midkii markaas nala siiyo waa uga shaqeyn karnaa. 100 input haddii lagu siiyo waad ka shaqeyn kartaa, macnaha haddii lagu siiyo 5 input waa kusii daraysaa un rf r4 rf by r5 oo ku dhifsan v-dooda ku dhifsan. keliya intaas waaye. keliya inuu amplifier macnaha inverting amplifier inuu yahay meesha maxaa ku garanaysaa? waxaa ku garanaysaa minusta, calaamadaas minusta u garanaysaa oo inverting waaye. inputkooda positive uu ahay, outputkooda muxuu noqday negative uu noqday. marka hal example aan ka shaqeynayna, examples markaan ka shaqeyno waan fahmaynaa qaabka usii shaqeynayo. examplekan waxaa noola diray output voltagekan iyo currentigan noola diray, iyo currentigan outputkan noola diray. waxaana la siiyey sidoo kale 2 volt oo v1 ah iyo 1 volt oo v2 ah. qaacidadii hadda aan soo saarnan v output kusoo helaynaa. marka koowaad waxaan dhahaynaa v0 waxay la mid tahay minus oo aan dhahayno 10 by 5, 10 oo loo qeybsho 5 oo lagu dhiftay 2 plus waxaan dhahaynaa oo kale sidoo kale tan waxaa haysanaa 10 oo loo qeybshay 2.5 oo lagu dhiftay 1. intaa markaan kasoo shaqeyn waxaa kasoo baxaysa 4 plus 4 kasoo baxayso oo lasii mid ah minus 8. haddaa labadan isku dirto 8 waaye, minustan kusoo dhifo minus 8 volt. marka v outputku minus 8 volt uu noqday. currentigan soo helaynaa. marka currentigu wuxuu la mid yahay currentiga inta maraya oo lagu daray kan inta maraya, macnaha v outputkan intaas la mid. marka waxaan dhahaynaa currentigan halkaa maraya waxaa lagu helaa 8 kan hadda soo saaray minus 8 oo loo qeybshay 10 plus minus 8 oo ilaa v outputkana ilaa halkan macnaha voltagekan kale waa 0, voltageka waa 0 minus 8 oo loo qeybshay 2. marka meesha waxaa kasoo baxaysa minus 0.8 minus 4 oo lasii mid ah minus 4.8 milliampere. milligaasna wuxuu ka yimid keyda ma aanan qaadan. hadda keydan labadan key ma aanan qaadan, keydana hoose ay noqonaysaa. marka milli saasay ku noqotay, minus 3 saasay ku noqotay. marka currentigiina waa intan, voltagekiina waa intan. aad buu u fudud yahay summing amplifier. sidoo kale difference asagoo ahna waan arki doonaa. marka cashirkan intaas ku ekeynaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.